Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, colloquially known as MBS, is the Crown Prince of Saudi Assalamu Arabia. alaikum. Born Waa August kuma 31, Maxamed bin Salmaan. 1985, Maxamed bin aged Salmaan 33 wuxuu years magaalada old, Jidda ee dalka Sacuudiga ku birthplace dhashay Riyadh, 11 Saudi Arabia. bishii Agoosto Spouse ee sanadkii 1985. Wuxuu ahaa wiilka curudka ah ee uu dhalay boqor Salmaan bin Cabdulaziz Al Sacuud. xilligii uu Maxamed dhalinayay ahaa mid ka mid ah dhaxal sugayaasha boqortooyada. hooyadiis waa xaaska saddexaad ee boqor Salmaan kadib markii uu shahaadada koowaad ee waxbarashada jaamacadeed ka qaatay jaamacadda King Saud ee ku taala magaalada madaxda Sacuudiga ee Riyadh. wuxuu ka soo shaqeeyay hay'ado kala duwan oo ay leedahay boqortooyada. sanadkii 2009 waxaa loo magacaabay inuu la taliye khaas ah u noqdo aabihiis oo xilligaas ahaa duqa magaalada Riyadh. Maxamed bin Salmaan ayaa awoodda boqortooyada lugta la soo galay sanadkii 2013 markaasoo loo magacaabay madaxa qasriga dhaxal sugaha boqortooyada isagoo darajadiisu ahayd heer wasiir. sanadkii ka horeeyay ee 2012 ayaa aabihiis loo xushay inuu noqdo dhaxal sugaha taajka boqortooyada kadib geeridii Naif bin Abdulaziz oo ahaa qofka dhaxalka xilkaas ugu sokeeyay. bishii Janaayo ee sanadkii 2015 ayuu geeriyooday boqor Cabdallah bin Abdulaziz. Salmaan ayaana xilka boqortooyada la wareegay isagoo markaas ay da'diisu ahayd 79 sano. boqorka cusub ayaa si degdeg ah u sameeyay laba go'aan oo ay la yaabeen dadka kormeera xaaladaha maamulka boqortooyada kadib markii uu wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugaha ugu sokeeya ee taajka ahna wasiirka gaashaandhigga, halka wiilka uu adeerka u yahay ee Maxamed bin Naif uu ka dhigay ku-xigeenka dhaxal sugaha boqortooyada. Maxamed bin Naif ayaa markaas ahaa qofka ugu habboon ee mudnaanta ku leh taajka. warqadda lagu qeexay go'aanadaas ayaa noqotay tii ugu horeysay ee xilka dhaxal sugaha boqortooyada loo kala wareejiyo wiilasha uu awowga u yahay ibnu Sacuud oo ahaa ninkii aasaasay boqortooyada. mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu horeeyay ee uu Maxamed bin Salmaan qaaday markii uu noqday wasiirka difaaca waxay ahayd inuu bishii Maarso ee sanadkii 2015 dagaal ku qaaday waddanka Yemen isagoo taageero ka helayay dalal kale oo Carbeed. dagaalkaas ayaa yimid kadib markii kooxda falaagada ah ee Huutiyiinta oo ay Sacuudigu aaminsan yihiin inay Iiraan ka dambayso ay xoog kula wareegeen magaalo madaxda Yemen ee Sanca, isla markaana ku qasbeen madaxweyne Cabdulrahman Mansuur Haadi inuu dalka dibadiisa u baxsado. weerarka Sacuudiga uu ku qaaday Yemen ayaa horumar aad u yar sameeyay muddo ku dhawaad 5 sano oo la soo dhaafay. wuxuu xitaa sababay in Sacuudiga iyo xulufadiisa lagu eedeeyay inay geysteen dambiyo dagaal oo ka dhan ah bini'aadanimada, ayna malaayiin ruux oo rayd ah ku kalifeen inay noloshooda ciriiri gasho. bishii Abriil ee sanadkii 2015 boqor Salmaan ayaa isbedelo kale ku sameeyay kala horeynta xilka boqortooyada isagoo Maxamed bin Naif ugu magacaabay dhaxal sugaha taajka, halka wiilkiisana uu magacaabay xilka kale oo ah ku-xigeenka dhaxal sugaha taajka, ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad iyo madaxa golaha dhaqaalaha iyo horumarka. hal sano kadib Maxamed bin Salmaan ayaa shaaca ka qaaday inuu damacsan yahay qorshe uu isbedelo dhaqaale ugu samayn doono Sacuudiga si uusan mar walba ugu tiirsanaanin dhoofinta saliidda. qorshahaas oo lagu magacaabay hiigsiga 2030 ayaa dhigayay in la kordhiyo dakhliga ka soo xaroodo ganacsiyada aan saliidda ahayn ee 2020 la gaarsiiyo lacag dhan 600 oo bilyan oo riyaal oo u dhiganta 160 bilyan oo doolarka Mareykanka ama 123 bilyan oo gini. weliba markii la gaaro 2030 la gaarsiiyo lacag dhan 1 trilyan oo riyaal. lacagtaas ayaa 165.5 bilyan oo riyaal ka badan dakhligii soo xarooday sanadkii 2015. amiirka ayaa sheegay inuu doonayay sidii uu u abuuri lahaa hantida ugu badan caalamka oo gaaraysa 3 trilyan oo doolar, iyadoo lacagtaas qaarkeedna ay ka imaanayso shirkadda saliidda ee dowladda oo lagu magacaabo Sacuud Aramco marka laga dhigo mid si gaar ah loo leeyahay. qorshahaas ayaa sidoo kale dhigayay in wax laga bedelo xanaanka waxbarashada isla markaana la kordhiyo doorka ay haweenka ku leeyihiin shaqooyinka, sidoo kalena la maalgeliyo ganacsiga iyo madadaalada si shaqooyin loogu abuuro dhalinyarada. bishii Abriil ee sanadkii 2017 ayay boqortooyada ku dhawaaqday qorshe ku aadan in la sameynayo magaalo ay loogu talagalay madadaalada. magaaladaas ayaa la sheegay in laga dhisi doono cirifka magaalada Riyadh, ayna yeelan doonto howlo isugu jira dhaqanka iyo ciyaaraha oo ay sii dheer tahay xarun loo dalxiis tago oo lagu xanaaneeyo xayawaanka. amiirka sidoo kale horseed ka ahaa cunaqabatayntii ay dalalka Khaliijka saareen waddanka Qatar oo Sacuudiga ku eedeeyay inay gacan siiyo kooxaha argixisada
isla markaana faragelin ku sameeyo arrimaha dalalka kale. Tallaabadaas waxaa Sacuudiga ku wehelinayay dalalka Imaaraadka Carabta, Bahrayn iyo Masar, waxaana markii ugu horeysay la bilaabay bishii Juun ee sanadkii 2017. Boqortooyada Qatar ayaa iska fogeysay eedeymaha loo jeediyay waxayna ku gacan saartay liis ay ku qornaayeen dalabaad lagu xiray dib u soo noqoshada xiriirka diblomaasiyadeed iyo kii ganacsi ee ay la wadaagaysay dalalka kale ee khaliijka. Arrintaas ayaana horseeday ismariwaa halkiisa la gaarin. This was one of the most defining moments in Saudi Arabia in recent times. The king sacks his nephew and Crown Prince Mohammed bin Nayef. bishii Juun ee sanadkii 2017 boqor Salmaan ayaa soo afjaray xan socotay dhowr bilood oo ku aadneyd inuu mar kale xilka dhaxal sugaha koowaad ee taajka boqortooyada ka bedeli doono Mohammed bin Nayef si uu wiilkiisa ugu dhiibo. Si rasmi ah ayuu ugu dhawaaqay inuu Mohammed bin Salmaan yahay qofka ugu sokeeya ee ka dhaxli doono qasriga. Mohammed bin Nayef ayaa sidoo kale markaas laga qaaday xilkii wasiirka arrimaha gudaha oo loo magacaabay wiilka ay ilmaadeerka yihiin, waxaana lagu soo waramay in la geliyay xabsi guri. Xilligaas wixii ka dambeeyay Mohammed bin Salmaan ayaa qaadayay tallaabooyin uu ku sii xoojinaya awoodda uu ku leeyahay qasriga boqortooyada. Isla markiiba wuxuu yareeyay lacago isugu jiray gunooyin, abaalmarino iyo maamuus la siin jiray shaqaalaha dawladda iyo ciidamada. Lacagaas oo ay boqortooyada bilowday sanadkii 2016 ayuu ku tilmaamay kuwo hoos u dhigayay dhaqaalaha dalka. Bishii Sebtembar ee sanadkii 2017 waxaa la bilaabay howlgal ka dhana dhammaan dadka ka soo horjeeda xanaanka siyaasadeed ee dhaxal sugaha. In ka badan 20 ruux oo isugu jira wadaado iyo aqoon-yahano ayaa xabsiga la dhigay xilli ay ciidanka Sacuudiga sheegeen in bartilmaameedsanayeen dad wakiilo u ah dalal dibadda ah oo doonaya in qalqal la geliyo ammaanka boqortooyada. Dabayaaqadii isla bishaas Mohammed bin Salmaan ayaa loo xakliyay inuu mas'uul ka yahay isbedel uu boqor Salmaan ku dhawaaqay oo la xiriiray in bisha Juun ee sanadka 2018 meesha laga saari doono go'aankii dumarka Sacuudiga lagu mamnuucay inay gawaarida kaxeeyaan, inkastoo arrintaas ay ka soo horjeedeen dadka isbedel diidka. bishii Oktoobar ee isla sanadkii 2017 amiirka ayaa sheegay in qorshihiisa ugu weyn uu yahay soo celinta islaam dhexdhexaad ah, kaasoo uu sheegay inuu qayb ka yahay qorshayaasha uu ku casriyeynayo boqortooyada Sacuudiga. Wuxuu ka dhawaajiyay inuu lacag dhan 500 bilyan oo dollar ku maalgelin doono mashruuc lagu sameynayo magaalo cusub oo loogu talagalay ganacsi iyo madadaalo. bishii xigtay wuxuu bilaabay howlgal ballaaran oo ay boqortooyada sheegtay inay ku bartilmaameedsanaysay shakhsiyaad ka macaasha musuqmaasuqa, waxayna dad fara badan oo arrimaha Sacuudiga falanqeeya tallaabadaas ku tilmaameen mid uu Mohammed bin Salmaan isaga hor leexinayay caqabadihii ugu dambeeyay ee ka hor taagnaa inuu si buuxda ula wareego maamulka boqortooyada. Dhowr amiir oo ka tirsanaa qoyska boqortooyada ayaa ka mid ahaa 381 ruux oo lagu xiray howlgalkaas, waxayna kala ahaayeen maalqabeenka lagu magacaabo Amiir Al-Walid bin Talal iyo Amiir Matib bin Abdallah oo dhalay boqorkii hore ee Sacuudiga. bishii Janaayo ee sanadkii 2018 heer ilaaliyaha guud ayaa sheegay in dadka la xiray ee dambigooda qirtay oo ay ogolaadeen inay soo wareejiyaan hanti qiimaheeda lagu qiyaasay 400 bilyan oo riyaal oo u dhiganta 107 bilyan oo dollar. Mohammed bin Salmaan ayaa xariga loo geystay dadka faraha badan ku tilmaamay mid lagu ciribtirayay kansarka musuqmaasuqa. Dadka maalgashiga samaysta ayaa bishii Agoosto ee sanadkii 2018 baraarugay khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhexgalay dalalka Sacuudiga iyo Canada. Arrintaas ayaa timid kadib markii dawladda Canada ay dhigeeda Sacuudiga ka codsatay in la sii daayo dad loo xiray arrimo ku saabsan inay u doodeen xuquuqda haweenka. Xariga dadkaas ayaa u muuqday mid qayb ka ah howlgalka ka dhanka ah dadka ka soo horjeeda siyaasadda Sacuudiga. Mohammed bin Salmaan oo wareysi bixiyay bishii Oktoobar ayaa difaacay tallaabadaas. Anigu iskuma magacaabin qof bedelaya Sacuudiga, waxaan ahay dhaxal sugaha boqortooyada. Waxaan isku dayayaa inaan sameeyo wixii karankayga ah ee ku aadan xilkayga, ayuu yiri Mohammed bin Salmaan. Waxaad nagala socoteen Rajada iyo Maanta. haddaad ku cusub tahay channelka subscribe sidoo kale faafi oo asxaabtaada la wadaag videoga haddaa ka heshay like saar, sidoo kale wixii tale tusaale aad hayso qaybteenada hoose noo dhig. mahadsanid.